munaasabad si heesan loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle ku qaranjimada ardayda dhameystay maxadka caafimaadka ee Abiyan. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay maamulaha guud ee maxadka caafimaadka ee Abiyan, Cabdulqaadir Maxamed Aadan oo ka warbixiyay marxaladuhu soo maray maxadkan sare ee Abiyan. qaybtan waa department caafimaadka khusuusan oo inta badan lagu darso maxay tahay kalkaalnimada iyo maadooyinka caafimaadka oo tiro badan oo isugu jira dhinaca nutritionka iyo pharmacology-ga iyo maadooyin kale oo tiro badan. marka dufcadda tan waa dufcaddii shanaad oo qaybtaas aanu ka soo saarno oo xirfadlayaal caafimaad ah oo ku soo biiraya kalkaaliyaashii hore oo deegaanka ka shaqeynayay. isla markaana dufcaddan shanaad waxyaalaha ay kaga duwan tahay dufcadihii hore waxaa ka mid ah in dufcadda tan ay ka mid yihiin arday tayadooda ay aad u sareyso oo cilmigoodan uu aad u sareeyo diiniyan iyo maadiyan intuba iyagoo muddada ay ku jireen courses-kana soo maray marxalado kala duwan oo bilow ilaa qayb dhexe ilaa gabagabadii hadda aanu taagannahay. marka dhammaan ardaydan ka qalin jabinaysa waa arday xirfadahooda theory iyo practical-ka ahba si guul ah oo Ilaahay u dhameeyay oo ku guuleystay. isla mar ahaantaana ardaydan waxay mudan yihiin in aan aad ugu mahadceliyo maantay. waxaan isla soo qaadanay waqti qurux badan, waxaan isla soo qaadanay waqti marxaladuhu ay kala duwanaayeen oo caqabado badan laga soo gudbay. ugu dambeyn halkaa waxaa ka hadlay marti sharafta ka soo qayb gashay ugu horreeyeen waalidiin, macallimiin iyo ardayda qaybaheeda kala duwan. waxaan mahad iska leh Ilaahay suukan keenay xafladana qiimaha iyo qadarinta mudan. waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa macallinkayga sharafta leh Macallin Cabdulqaadir soo abaabulay sida quruxda badan oo soo mariyay. waxaan leeyahay ardayda hore u socda kuwaas oo leh tiro iyo tayaba anfici karana bulshada dalka iyo deegaanka, khaasatan deegaankeena Buuhoodle. aad baan ugu rajo weynahay ardayda maanta ka qalin jabinaysa Abiyan Academy for Peace Education in ay wax weyn ka bedeli doonaan baahida caafimaad ee loo qabo deegaankeena. runtii waxaan leeyahay ardaydan dadaal weyn ayaa idin saaran. sidoo kale waxaa looga baahan yahay inaad dhiirigelisaan haweenka kale maadaama ay yihiin dumarku ama haweenku muhiimadda keliya ee bulshada u ah laf-dhabarta. anoo ka mid ah maamulka iskoolka Turkiga ee kuna hadlaya afkayga iyo afka maamulka guud ee iskoolka. xalfadan quruxda badan oo ay ku qalin jabinayaan ardaydan dhammaysatay kulliyadda caafimaadka gaar ahaan nursing-ka ee ka dhameeyay maxadka Abiyan Health Institute. runtii waa wax aad deegaanku u baahnaa kana xaqabtiri doontaan sectorka social development-ga gaar ahaan caafimaadka. maxadkan sare ee caafimaadka ee Abiyan ayaa waxay noqonaysaa qaybtii shaqada ka qalin jabisay maxadkan caafimaadka ee Abiyan iyagoo ugu dambeyn halka lagu guddoonsiiyay ardaydii shahaadooyinkoodii. Najma Maxamuud Salaad, telefishinka caalamiga Bulsha TV, magaalada Buuhoodle.